दोबारा सोचना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्यसु सर्वदा। dawladda Hindiya annaga ayay nagu tilmaameen dadaan waxba ahayn oo waxba tarakin awoodna aan lahayn haba yaraatee in kastaba la kaatay markaas ay ku leeyihiin annagu dhulka oo dhan baan u talnaa meel walba haatay waan u talnaa annaga xagee wax ka tareen waxba hayna hayaanbe awooddeeni iyo sutuubnadeeni waa ka kac habeenka xala taga weeye taas ma dhici karto awooddeeni waa sideedii wali ismaysan bedelin mowqifkeena waa sidiisii wali anaga go'aankeena gobolkeena inaan goosanano waanu goosanaynaa dhulkeenan barwaaqada ah ee doogala dawladda Hindiya iyada miyaana siisay waa maya nama aysan siinin
dadkeenan tabaalaysan ma iyada ayaa wax siisay waa maya maysan siin dowladda hindiya waxaase cawaaqib xumo darxumana aad ku nooshahay adigoo lagu haysto gumaysi ku jira adoo waddan ku dhashay anigu taas maxay tahay taas oo foolxumo qarbanimo wey aniga waxaa waajib ugu ah nin walaalkaya tahay inaan kugu raaco ra'yigaaga saxan kooduna waa qarmuun waxaan diyaar u ahay in dowladda aad dhisanayso aan kugu raaco lacag gooni aad samaysato magacna aad yeelato ummaddana wax u qabato waa haddii aad tahay nin waddaniya oo dadkiisa wax u qabanaya waan u qabanayaa maahane weliba waan u qaban doonaa taana mar hore ayaanba ka baaraan tegey beritoole qorraxda iftiinkeeda markay soo baxaysana waxaa soo baxaya qaraxyo badan oo iftiimaya ayaa beledka lagu arkayaa dhowr mar ayaan hore idinkugu sheegay gobolka subaar la dhahayo waa gobol ka mid ah dalkeena indiya wax kastoo dhacana kama tirayna dalkeena indiya waxa loogu nool yahay xornimo ballaaran maxay tahay xornimadan balaayo oo hadda ay u dagaalamayaan ma ka yeelayno war waxa uu falkaas ka dambeeyo waa dad xunxun oo qulqulataan ka raadinaya dowladdeena rabaana inay afgambiyaan mana ka yeelayno dadkaas haddii aan idiin sheego ma garanaysaan adinka ma garanaysaan laakiin waa burcad doonayaan dalkooda in ay iibsadaan war ninkan la dhahayo mashhuur wuxuu iska dhigayaa nin hogaamiye oo balaaye ah oo halis ah ma taqaanaa ninkaas wuxuu yahay waa nin dabadhilif u ah dowladaha shisheeye weliba waxaa waajib ku ah ninkaas inta la soo qabto dadweynaha hortooda la keenay kadibna la daldalo ayuu waajibkiisa yahay ninkaasi waa qaacidul waddan cadowga shacabkeena weeye marka waa inaan iska qabannaa haddii aanu nahay dad israacsan hindiya ha israacda cadowgeedana dhulka hoostiisa dhulkuba ha dhahaano مستر أسد هاي إيه ورن mashhuur laba wejil ayaa tahay مشهور وانين دمبلا oo wadankiisa gadanaya waa nin qaacimul wadana Soomaa dadka hortooda ayaa lagu daldalayaa waa lagu daldalayaa kaalay adiga xukuumadda Hindi ma dulaal u tahay adiga waxa sidaan ugu rafaadaysa inaad kursi hesho Soomaa qaacim baa tahay tuuga kursina sidaas ma ku helaysid haddii wax la daldalayana waa adiga maandhow hadalkayga si fiican u dhegayso xabad xal laguma gaaro taas niyadaada ka saar ninka suldaan la dhahayana waa nin taga oo dhiigga bini'aadanka ku qabaysanaya adiga ka gaarasho ayaad leedahay wiilkaygiiyow ka soo laabo nolosha macaankeedana dhadhami nin daacad ha noqo sharcigana isku dhib wiilkaygiiyow sharci buu ku leeyahay waqtigan ani waxaan u imaaday adiga inaan ku dilo maahe inaan sharci isu dhiibmo u imaan xornimadu sideedaba dhiig ayay u baahan tahay xornimo darteed waa in dhiig lagu qubaystaa haddii loo baadana dhiig waa in loo daadshaa isbuucan haddan soo dhaafi magaalada dhan hawdeeda ka cusa waa ujeedin waryaada xaqadamaa la iska sii madaxda dhan ma noola cawaba hal madaxa la suujiyooyaa teeda lama dadweynaha gurigooda ku oodayiin cabsi darteed banaan ma soo baxan shaqooyinkii dhan waa la xiri arrintaas waxaa bixisay daran journalist maxaslahay mataqaanaa dawlad ma baka dhisna ku lahaa waddanka wax dawlad ka dhisan tahay male magaalada dhan waxaa ka taliya burcaday dhaheen aniga wasiiradiisii telefoon igu soo diraayeen waxaan ugu jawaabo mala madaxayga waa ku weynaaday arrintan war burcadan maaragtay magaalada khasiisa sida uu dhaqsiyaha badan haddii lagu qawan aniga ra'iisul wasaaraha u geesay xanshadayda riboosa alisiyan dhaha waa neebsa aniga waa iska neebsa shaqa dhan ma shaqeeyayaan dhaha
isdaji mudane wasiir annaga haddaynu nahay balayska dalka dadaal weyn ayaanu haynaa meel walbuu falka dhici rabana waan tagnaa balse nimankaas waa inaga badbaadaan waa niman aad u nasiib badan war mashhuur iyo suldaanna meeshaan laga qabanin wax toosaya ma leh lamadaas waaye lamada dartood magaaladan burcadda ugu badaweysa waa inaan laga qabtaa lamadaas waddanka tali waad saxsantahay adiga waxaa habboon sun in sun lagu daaweeyo dadkan burcaddana waa inaan u raadinaa nin muhallig ah oo dhammaantooda baabi'iyo sunsuntay mukasooyan mudane arjun sin tuufaan ma taqaanaa haa arjun sin koo hadda kahor militariga laga ruqseeyo eriraaco galya taliya qalad ma lahayn ninkan ee qaladka waxaa lahaa ninka booliska ahay oo dad hortiisa ku leeyay arjun sin waa laga gardarnaa gacanta asiga ayaa lagu bilaabay arjun sin qaladkiisa wuxuu ahaa taliyihiisa soona ka amar qaadanin ayuu ninkaas si xun u garaacay sidaas darteed ayuu qalad ku qaatay taliya annaga hawsheena waan qabsan karnaa haddii aan boliiska nahay war burcaddaas haddii la raba in la baabi'iyo waa in laga qabtaa ninka la dhahayo suldaan iyo mashuud labadaasoo la qaban wax hagaagaya haba yaraatee ma jirto ninka la dhahaya arjun sin tuufaan waa nin halis ah oo weliba militari ah ninkaas haddii uu ogolaado booliskii inuu gacan saar la yeesho waxaad ogaataan howlgalkeena inuu ahaanayo howlgal lagu guulaysto oo weliba burcaddaas lagu baabi'iyo marka ma isku raacna arrintan laba xabo sawaad iyo haf suqaar ay keen aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa mudan arjun singh maxaa yeelay maanta waxaad boliiska ku caawisay inay gacanta ku dhigaan tuug weyn oo dadka iyo dalkaba halis ku ahaa taariikhdayna way ku xusi doontaa waqtigaan raashinka cunaa hadal uma baahni dee dalabka
लंबी है ना छोटी है, नागिन इसकी चोटी है। ओए होए होए लंबी है ना छोटी है, नागिन इसकी चोटी है। बिंदिया के लिश्कारे से मारे मुझे इशारे से, इसने तो हद कर दी है। दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी, चुबारे विच खड़ी कुड़ी दिल मंगदी। मेरी बातें माने ना, मेरी मर्जी जानना, मेरी बातें माने ना, मेरी मर्जी जाने ना। पीछे पीछे आना है, ये तो मेरा बनाना है, समझे ना बेदर्दा। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, तुम्हारे उत्ते खड़ा मुंडा दिल मंगदा। दिल मंगदी ओ कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदी ओ कुड़ी दिल मंगदी। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा। अरे देखो मुझे तंग करे ओ शब्बा, रास्ते पे जंग करे ओ शब्बा। समझाऊं इसे मैं क्या करूं, मैं इश्क मोहब्बत से डरूं, मुझको ना ये जचदी। दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी। मेरी बातें माने ना, मेरी मर्जी जाने ना। पीछे पीछे आना है, ये तो मेरा पराना है, समझे ना बेदर्दा। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा। ये तो है दीवाना बड़ा होए रब्बा, पकड़े दुपट्टा मेरा हाय रब्बा। मेरी आंखों का काजल बने, और मेरी चाहत में पागल बने, मुझ पे ना ये सजदा। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा। लंबी है ना छोटी है, नागिन इसकी चोटी है। बिंदिया के लिश्कारे से मारे मुझे इशारे से, इसने तो हद कर दी हो। दिल मंगदी है कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदी हो कुड़ी दिल मंगदी, चुबारे विच घड़ी कुड़ी दिल मंगदी। मेरी बातें माने ना, मेरी मर्जी जाने ना। पीछे पीछे आना है, ये तो मेरा बनाना है, समझे ना बेदर्दा। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा।
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالقنا أنا رسولي بسلطان. baabuurka maxaa loo keenana intaynu ku qaadna lagu soo wareejina wiilkii baabuurkan waxaa loogu talagalay dhallinyarada la tababaraya inay ku tagaan meesha xuduudda ah xerada ku taal anu waan ii raacay soo tababar wariyaa munaa kaale haye soo soco waa soo socdaa يعني dhegaysta meeshaad u socotaan waa meel xaafad ah oo xuduudda ka shaqeysa wax problem ah ma laha cabsi iyaan la muujinin tababar ayaad qaadanaysaan waxaa idinkaga baahan yahay dadaal iyo karti dheeraad ah waxaad tihiin dad xurmana doona socda cuna waxaad aragtiin waryaa adiga maxaad meesha la taagan tahay maya aniga tababar aadaya ma jirto war xornimada loo dagaalamaya waa maxay ii sheeg war annaga xornimo waa haysanaa xornimo kale ma u baahnahay war waddankeena laba xorriyad maa loo baahan yahay ii sheeg idinkaa idin weydina middaas iga jawaaba canug yaroo la gudoon weli raysan ayaad adiga xukuumad iyo siyaasadna waxba ka garan maysid ee dhegaysa baan ku leeyahay xornimada adiga aad ku riyoonaysid 50 sano ka hor ayaa daliye laga dhaliyay ilaa haddana gobolkeena ma aysan soo gaarin taas ayaa kaa maqan waxaan nahay dad la xaqiray oo xaqooda lagu istaagay si walbay noqotana u dulqaadan mayno ee ka hortag baan ku leeyahay orod shaqada cab haddii kale war ma aadaya meeshaas aniga adiga midaan kuu sheegayaa goob dagaal markii la joogo ninka fulaga oo dhabarka ku soo aadiya xabad ayaa looga dhiftaa war adiga inaa xabad igu dhifta anin diyaara waaye laakiin waxaa ogaata inaan baxo waddankeyga ma ka soo horjeedsana wax walba ha sheegto ma aadaya meeshaas maxaad ku hadlaysaa waddankeed ka hadlaysaa war dadkaasi adiga isku waddan ma tiidin isku damiir ma tiidin isku qadiyadna ma tiidin dadkaas ninkeenna hadday dilaan maxay samaynayaan ma garanaysaa xaasidnimo intay ka qabaan meeshii karfan laga gelin lahaa geed ayay dul saarayaan marka dadkaasaad leedahay isku waddan ayaan nahay sidaa rabtuu hadal adiga laakiin aniga meeshaas ma aadayo go'aankeyga waa go'aan xornimadu dhiig ayay u baahan tahay xornimada dhiig ay ku qubaysatana way u baahan tahay haddii loo baahdana waa loo daadiyaa falkii maanta dhacay aniga ma u malaynayo mashuud inuu dembi ku galay waxaasoo dhanna waxaa ka dambeeyo suldaan qoor run ahaantii aniga haddii aan fakari ma ila ahan dawladda dhan annakoo yar inaan la dagaali karno middaas suurtagal ma ahan rajooyinkii aniga aan ku riyoo jirin mid ii suurtagalaysa ma ahan aniga waxaan rabay inaan dhakhtarad aan noqdo oo jaamacad aan dhigto hooyo iyo aabba hadday ii noolaan lahaayeen ani noloshaan foosha xun ma ku jiri lahayn horta adiga noloshayda ma ka fakaraysid miya haddii ay suurtagal tahay meeshaan iga wad aniga noloshaan cariirigeeda ma ku jiri kari waa ku baryahay meeshaan iga dhegaysanaya horta shaki kuma jira aniga jacayl xaddhaaf inaan kuu qabo laakiin sidaan kuu jeclahay si ka daran waddankayga iyo xornimadeeda ayaan u jeclahay mar dambe meesha aniga wadiyaad tiraadana waxaad ogaataa sujuudda inaan kaa tooganayo hadalkayga fahamte duufaan annagay rabaan miya inay duufaan nagu cabsiyaan duufaan hadduu yimaado hawshan inaan joojinayna may moodayaan ayaga maanta akhbaar ayaa isoo gaartay akhbaartaas u sheegaysa nin kabtana oo la yidhaahdo arjun sin tuufaan in loo soo xilsaaray inuu annagana baabi'iyo oo nu burburiyo taasna u suurtageli mayso wuu riyoonayaa baan malinaya annaga shalay wixii ka horreeyey weeraradeenna waxay ahaayeen dhimbil yar oo dab ah laakiin hadda awood buuxda ayaan yeelannay magaaladoo dhan ayaan holcinay arjun sin duufaan iska dhaaf arjun sin dhulgariir xataa waxba nagama qaadi karaa dil waa runtaas saaxiib annaga waxaan u baahannaa sida adigoo kale nin geesi ah weligaa qalbigaaga sidaa daba ugu shidnaado geesi ayaa taadiye kabtankaas anagoo doonaya inuunu soo weeraro balse intuusan annaga isku daynoona burburiyo horta korkiisa busaa saaran busta ayaan ka jafaynaa
بروجرام محنو دارسين borgaram anaa kuu diyaariyey berrito wasiirka arrimaha gudaha joornaalka ayaad ku arkaysaa dhimashadiisa aniga adiga berito waxaanu aadaynaa dhalinyarada tababar ku socdaan hub qaadaynaaye qorshaan yaa fulinaya ii sheeg bal waa kuma ninkee anigaa ku haya wiilkan yar ayaa noo filinaya haabe hawshan anigaa soo fulinaya ha laygu imtixaamo dowlo idinkana ducadiigu soo kaba kelmad haddii afkaada ka soo baxdo madaxaan xabad kaaga goynaya hadda wixii aan ku yidhaahdo oo keliya ayaad samaynaysaa soo soco idinkan raggan ciidamada ee la soo laayay bilad sharaf ay mudan yihiin laakiin waa kuma boobareed hadda way dhinteen maxaan bilad siiyaa runtii waxay u halgamayeen sidii gobolkeena xurnimo buuxda aan ugu heli lahayn hadda ayaga way dhinteen wax dhinta way dhinteen balse wixii nool dhaqan ayay u baahan yihiin meedkan hortiina yaala waxaa loo baahan yahay inaad khayro aad qaadaan oo aad halgantaan aniga waxaa ii roonayd saaxiibaday meeshay ka dhimanaya aniga inaan dhinto laakiin sidii fulay oo kale anigaa soo cararay qaladkoodna anigaa iskale saaxiibaday aniga eedsanayna dhow maya guul inaad oydid waa qalad nin geesiya ayaa tahay waxaa loo baahaya meeshaad ka oylaad in uu korkaaga dhiig ka yimaado saacaddan laga bilaabo aniga duufaan isgaadgaadaa naga dhexeeya dadkan burcaddaa oo dhinteen dhimashadooda aniga kuma faraxsani ee aad baan ugu xumahay maxaa yeele dadkaas dhintay waxay ahaayeen dad hunuuda oo walaalaheena ah annagana mowqifkeena maaha dadkaas burcadda inaan layno mowqifkeena waxa weeye ayagoo nool inaan soo qabanno oo aan wax fahansiino hubkana ka dhigno maxaa yeelay dagaal wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta mudan waxaan ku weydiinayaa maadaama dadkan ay ka soo weerar qaadayaan xuduudda gobolkeena ama magaalada ka baxsan hadhow soo kuma adka sidii lagu soo qaban lahaa dadkaas oo dhibaato maaha dadkaas qabashadooda dhibaato maaha meel walba ka soo gala ama dab walbay shidaan balan waxaan ku qaaday inaan demiyo dam aan siiyo halo arjun waa suniya sooniya haye waxaan ku faraxsanahay geesinimada aad muujisay adiga iyo heerkaad adiga aad gaarto midaas ayaan ku faraxsanahay maalin walbana tv-ga ayaan kaa daawadaa haddana waraysiga lagula yeeshay aad ayaan ugu farxay 5 nin oo burcadka adiga aad dishay midaas aad ayaad ugu mahadsan tahay hambali gacli waqtigan xagee joogtaa adiga hoos u fiiri qalbigaaga haddaad fiirisid meesha aan joogo waad ogaanaysaa maxaa kugu dhacay sooniya maanta aad baad u farxsan tahay maxaan u faraxsanaa waay maanta sideedaba aniga amooraata ayaan ahay haddaad ii dhawaaleed hab ayaan ku sii lahay xabadka ayaan xabad ku saari lahay gacliso bateriga mobilka iga dhameen ani adiga galabta ayaan kulmaynaa waa inoo galabta
invitation to the dance. तूफान आएगा तुम लोग यहाँ छुप जाओ कम ऑन हरी अप
waan ogaa dumaash waxaad ka murugaysantaa adiga guul waxba kama ba'ayaan aniga ayaa soo badbaadinaya adiga qalbigaa khayr u sheeg waxaan maqlay booliska qoftii ay qabtaano burcada si xun inay garaacayaan garaacintaasna uu ku dhimanayo aan midaas muddo ayaga burcad hadday nagu sheegaan annaga sidaas burcad kuma noqonayno waxaana dad xaqooda ku dagaalaya guul gacantooda nimankaas hadduu ku dhinto ballan waxaa waa dad badan inuu ka la'anayo anigaa taas kaa ballan qaada marka dumaash adiga qalbigaa khayr u sheeg guul nin xaq ku taagan weeyaan nin xaq darra ku socda ma ahayn hadday xaq darra ku dilaanna aniga ayaa u aaraya taliya ninkan waxaan ka celinaa asagoo isdili rabo adiga dhegayso dadka dartood oo isku dili rabtid xaggooda ma waxaad moodday naftaada qiimo weyn inay ka leedahay dadkaas xaggooda waxaa ula mid tahay gumaca rasaasta ee annaga nagu soo ridayaan haddii aad doonaysid inaad annaga naga badbaadid waxaa kuu roon inaad runta sheegtid dadkaas meeshay ku noolyihin qorshahooda dhan inaad noo sheegtid haye kabtan tuufaan wakhtigaaga qaaligaa khudbaha isaga lumin anigu waxaan ahay nin ciidana saaxiibadayna wax nagu soo dhaartay xornimo buuxda inaanu keenay amaba inaan dhimanayo mana laga yaabo sirtooda inaan bixiyo marka ha isdaalin aniga waxaan ku siinayaa muddo 24 sac waxaad haysataa 24 sac oo keliya war hay burcad maxaad go'aan ku gaartay fiiri yaa ku soo booqday hooyo haye xaq uma lihid adiga inaad hooyo i tiraadid aniga 9 bilood iyo si gooda ayaan caloosheeda kuugu soo siday laakiin dhulkii aad ku soo barbaartay oo ku soo socod baratay ayaad maanta inkirtay soo maahan dhulkaas haddaad inkirtay aniga xaggaan jiraa anigana waad inkiraysaa beri ka maalin aniga uma imaanin inaad aniga aan ku waaniyo ee waxaan u imaaday wiilkayga dhintay meydkiisa markii ugu dambaysay inaan arko isii daa maya hooyo wiilkaagaan haasasay dhihin waa runteed hooyada sababtoo ah hooyo doonaysa ma jirto dunidan ku nool wiilkeeda inuu burcad noqdo oo dhulkiisa hooyo ka soo horjeesto hooyadaana kaligaa kuma dhalin anagoo dhan wayna dhashay adiguna waxaa tahay qof ka soo horjeesta dhulkiisa hooyo qofka hooyadiis ixtiraam waaye dhulkiisa hooyana ixtiraam waaye waxaad ogaataa adduunyada inuusan bos ugu bannaaneen marka walaal ilaa hadda wakhti ayaad haystaa waxba kaama halaaban ka soo laabo waddadan xun aad ku socotid aniga ayaa garab tusinaayo hadhow ku badbaadinayo wiilkayga runta iska sheeg waad ka badbaadaysaa nimankan runta u sheeg meeshay joogaan nimankaas burcadka wiilkayga waa ku baryaa hooyo iska kaafi hooyo waaya kabtan go'aan ayaan gaari runta dhan aniga idiin sheegayo waxaan idinka qarinaya male waa ballan hooyo haa halow waxaa kula hadlaya waa mashhuur annaga adiga colaad gooniyi kuma qabno dawladda ayaan la dagaashannahay adiga naftaada haddaad jeceshaa 24 sac gudahood guul inaad sii daysa ayaa kaa codsanayaa ma waxaad u cagajugulaynaysaa nin militariya oo geesiya geesinimiisa soo maqashay nin oo isku xisho naaga ayaa loo war adiga dhegayso waqti qaali ah iga lumin waxaan kaliyan ku yiri guul 24 sac gudahood ku soo day haddaad ku soo day weysidna dhimasho isu diyaari aniga waxaan doonayaa inaan ku arko kula sheekaysto war adigoo kale lama sheekaysta aniga hadalkayga dhegayso adiga xabad kaliya ayaan ku sheekaysan karnaa ninkaas 24 sac gudahood ku soo daayaan ku mashhuur macasnimada iska daa aniga inaan kula kulmo oon kula sheekaysto ayaan doonayaa mooye inaan ku sharqo lama doonayo tan labaad weji askari
ama weji militarinimo ma kula kulmaya aniga weji walaaltinimo ayaan kula kulmaya waxaan ku ballan qaaday kaliya in amaanayo ciidan aan soo wadanayn maxaad ka leedahay arrintaas waxaad iga toogaysid inaad ila kulantid soo maaha middaas waan kaa yeela laakiin mid kalan kuu sheegaya haddaad ciidan iyo khuraafaad aad iila timaadid ogow casharkii aan kuu dhig weligaa ma hilmaamay xilligaan kulmaynan anaa kula socodsiinaya haysoo hadal maxaad ii sheegi rabtay aniga waxaan halkan kugu yaray inaan kuu sheego inaad tahay wiil dalka u dhashay dadkan kusoo adeegsay oo dagaalamaysidna dadkaas saaxiibadaa maaha waa cadowgaaga waxayna ku dhaheen xornimo ayaan u dagaalamaynaa dagaalkaas ay dagaalamayaan maaha mid xornimo doona waxay doonayaan dadkaas inay dalka iyo dadkaba baabi'iyaan hadda aniga ku hortaagan waxaan ahay qof walaalkaaga oo kale oo kuwaaninayo marka waanadeeda qaado adiga ciidankaagaba hubka iska dhiga waxaan idin ballan qaadayaa dawladda inay cafis idin fidiso nolol raaxalena aad ku noolataan oo xorriyad leh sidaan u malaynayo dawladdiinna awooddii ayaa ka dhammaatay marka adiga ayay ergahan kuu soo dirteenoo annagaad noo imaanaysa kadib annagaad waxaad nagu leedahay hubka iska dhiga dawladdana cafis ayaan idiin weydiinaya adiga calool jileexa ayaa kaa batay war inqilaab sidiisaba dheeldheel kuma bilowdo dheeldheelna kuma dhammaado waryaa annaga sidaynaba xaq ayaan naga maqan xaq ayaan u diriraynaa marka adigana waxaad doonaysaa si fudud in aad beenbeen nooga guulaysataanoo aad madax naga garaacdaan war haddii dawladdan baasoo aad sheegaysa annaga aan ka mid nahay maxaa gobolkeenna maxaa farxad la'aan ka dhigay taas ma isweydiiday maxaase horumar u gaar weynay war waxaan ku leeyahay eeddaas dawladda dusha ka saarin dhegayso farxaddii horumarka aad sheegaysid haddii aad dhibaato qabtaan dawladda ul hor imaada dhibkiina waxaa laga yaabaa in aad ka baxdaan balse haddii aad damacdaan dalka inaad kala goysaan middaas mid idin suurtagalaysa maaha dhibka annagana haysta mid war oo xalli kara ma aha madaxaynana karfan ayaa noogu duuban goob dagaalna waannu joognaa haddiiba waxaan isugu imaanayno waa dagaal oo keliya maahee war ma isugu imaanayno annagu waxa keliya oo aan u baahannahay waa xurnimo ma aha gumaysta inaan qof aan gelin warniyow qofkan ku hortaagan militari maaha waa shakhsi caadi walaalkaaga oo kale haddii aad qalab iga fahansida waxaa doonta igu sameeya qof mar qalbigiisa haddii dab uu ka kaco oo dagaal u bareero dawlado fara badan ayaa hoos imaanaya dawladdiinnu maxay tahay waan u bareernay inayna hoos yimaadaan waanana hoos imaanayaan hoosteennay imaanayaan anaa ku yidhi ord hooyadaana kaxayso waxaadna geysaa meel aad labadiina xornimo ugu noolaan kartaan ordaha labadiinaba waa mahadsantahay duufaan maya aniga waxaan axsaan adiga kuu sameeyey malaha walaal jir noqo asxaankaaga ma iloobay idhegeysi wiilkaygii raajaa buur ayaan tegaynaa saasaan go'aankaygu gaaray inaan meeshaa degno waaya hooyo idhegeysi wiilkaygii fiir baabo ayaan maranaa sababtoo ah waxaa sharad ku galay marka lagu soo daayo meeshaas inaan toban calaama saaro markaa meeshaasaan sii maranaa ma garatay waaya hooyo soo bax जब उस निगाह से पहली निगाह मिली फिर उसके बाद न अब तक कहीं पनाह मिली मताए कौन मकान भी मिले तो ठुकरा दूं ये कब नहीं कि मुझे तेरी बारगाह मिली ऐसी पोशाक aniga meeshaan waxaan u imaaday inaan adiga kuu duceeyo laakiin intaana kuu duceynin ka hor waa lagu sii daayey middaas ayaan ku farxay aniga sidaas ayaan meeshaan u imid hooyo aniga danyar ayaan leeyahay laakiin si dhaqsi ayaan ku soo laabanayaa wax yar ii dulqaata
mashuud wuxuu ku kalsoonaa adiga booliska inaysan hadal afkaaga ka dhalinayn haddii xataa ay kawkaasiyaan been maaha sidaasay tahay annaga saldhigyadeenni hore waanu ka soo guurinay oo saldhigyo cusub ayaa furan laakiin faa'iido ayay noo taaba haddaad ka soo badbaadda nimankaa laakiin waxaa la yaaba sidee nimankaa aad uga soo badbaadday saacaddan way ku dili lahaayaane ayagoo idili raba ayaa aniga 4 ka mida soo dilay maahane saacaddan maba aan noolaadeen sidaas ayaan ku soo badbaaday aniga nin rag ayaa tahay waana loo baahnaa ninka booliska inaad soo deshid adiga balse taasi naftirkeedaaba geesinimo u baahan ee waxaan ku weydiinaya hadda maadaama aad timid hurdo ayaad u baahan tahay horta xoogaa indha gaduudso adigana bannaankana keen mashuud canuga hadalkiisa ilama qurna oo ka shakiya aniga horta anigaa ka shakiy laakiin xalkiisaan ahaaye arti waa gul arti maxaa dhacay maxaa ku dhacay haa mashuud iyo ciidankiisa ayaan ka soo badbaaday maxaa yeelay been ayaan waxaan u sheegay suldaan haye anigana maanta wax naftaad u taaganahay abaal uu ii galay kabtan tuufaan asaga xabsiga iga soo daayay aniga nasiib ayaan leeyahay waxaan ku sheegay kabtan tuufaan nin xun maaha fikraddii layga dhaadhiciyana waxay ahayd mid qaldan sida ugu dhaqsiya badan waa inaan labadeen nafta inoo badbaadinaa meeshan haddii aan sii joogno halis ay noo tahay warninka waa kaa saaqo صبح guul xornimadu dhiig ayay u baahan tahay dhiig loogu qubayana way u baahan tahay haddii loo baahdana waa loo daadinayaa maya waxba ka baqan tuufaan aniga ma gabadha badbaadiye aniga isbitaal la geeyay adigana isbitaal goynaa subax maya isdaalin aniga waqtigayga waa dhammaaday ee waxaan ka codsanayaa aati inaad ii badbaadisaan aniga nolosheedoo dhan waxaan ku dhammaystay foolxumo hal ishanay samee kitaabkan hooyada iiga gudbi waxaadna ka codsanaysaa inay cafiso waan ku baryaa tuufaan aniga nolosheedoo dhan waxaan ku soo dhammaystay qaa'inimo laakiin qaladkaas aniga ma lahayn dad ayaa i dhuminayay
balse nasiib ayaan leeyahay haddii aan falxumo ku qaatimaysan maya gol dembigaaga waxaa tirtiray ilintaada hadda adiga dembi ma lihid nadiif ayaa tahay haddii aan nasiib leeyahay waxaan u rajaynayaa waddankayga in tafaraaruq dambe ama dhiig dambe uusan ka daadanin waxaana jeclahay anigoo waddani ah in aan dhinto hindiya ha noolaato sidiisa bili aadmigu madax la'aan ma socon karo annagana hogaamiyaheenna ayaa maqan hadda waa inaan soo daynaa hogaamiyaheenna gacanta dowladdoonu ku jiryahay tallaabada ugu horraysan qaadayno waa inaan dowladda duulaan ku anaa qorshe kale ku hayaa beri beledka dhan bambaa ku qarxinaya si loo soo dayo bamba keliya maahane macal dadka waa in la xasuuqaa marxaba si hogaamiyaheenna loo soo daayo in yar oo calool jilaacaha muujina hawshaana ku dhaqaaqa socda mashuul dhegayso haddaad tallaabo dheeraada qaaddo waxaad ogaataa in waxba kaa soo raacaynin suldaanka dawladda xaggooda wuxuu ka yahay dembiilo weyn hana moodi inay fadhiisanayso deeqa hadda dawladdu waxay ku socotaa sidii annaga ay nooga qaban lahayd tallaabo kastoon qaadno jawaabteeda sida ay ku bixin lahayd ma aha dagaal hadda cad in lagu dhaqaaqa iyadoo maskaxiyanaysa ku jirin waxaan maskax ku jirin muunad ma keenaan baa la yidhi marka waxaan kuu sheegayaa saad ku socoto waa khaldanta walaal kabtan duufaan ma imaanaya miya hooyo adi waxbaa ka baqin waa imaanayaa hay meeqa saxa sugeynaye ma imaanaye meel dheer ma jiro hadda ayuu imaanayaa hooyo isteji hooyo hay kabtan duufaan ma timi aawi guule muu kaa daba imaanayaa gadaasha ma soo socdaa hooy aad baan ugu xumahay sababtoo ah wiilkaaga isagoo nolon kuu keeni waaya wiilkaaga cid kale ma dilin asxaabtiis ayaa dileen intaasoo dhiman ka horna wuxuu isoo dhibay kitaabkan wuxuuna ii yidhi hooyaday u gey wuxuuna kaa codsaday inaa cafisid waa cafiyey aniga wiilkayga waa cafiyey wiilkaygana aad iyo aadaan u jeclaa laakiin waxaan ku sii faraxsanahay maadaama aanu budhcadnimadii uwada aanu ku dhimanin wiilkayga oo isagoo wada toosan haysta uu dhintay taas aniga ku faraxsanahay wiilkayga waana cafiyey cafis ayuu iga yahay wiilkayga mar kastana waa u soo ducaynaya aniga adiga waa inaad iga arta ninkii wiilkayga kilaataan jeclaa iga dilay raggaas inaad iga arta ayaan jeclaan lahaa hooyo kastaana inay indhaha ku kala qaada ayaan rabaa oo aanay wiilkeeda xabadaha u dirin sababtaa nabad ma lagu helaayo kuwana xornimo doon maaha ee waa dhalinyaro baabiis dagaal wiilaa ku dhinta maana wiil ma ku dhasho بس هقول بس أتكي wiilkaaga ma dhaman wiilkaaga uu kortaagan yahay hooyana weligeed ulaad la'aan ma noqoto soo baxa hooyo aniga soo wiilkaa mee isoo baxa soo baxa gurigeena walaal dhegeyso hoo lacagtan gultac si fiican ha loo sameeyo ha loo duceeyo
taliya sidee kaa noqotay ma nin argagixiye ah oo waddankiisa dadkiisa baabinaya aad lacag waxaad ugu dhiibaysaa in tacsi loo dhigo kanoo kale maydkiisa inuu dhulkeen la khasaariye maba ahan waa in duurka la geeya oo eeyaha loo dhigaa si ay ugu quraxdaan subaxi hornaya dhegeyso isbitoore adiga waxaan ku moodaa qof bani aadan oo qalbi leh laakiinse adiga ma tihid qof bani aadan oo qalbi leh sababtoo ah xayawaanka ayaa kaa qiimo badan bani aadan in lagu tilmaamo waa qalad hore waxaa loo yidhi cadowgaaga haddii uu gurigaaga yimaado lama ceeriyo waa la soo dhaweeyaa weliba caanamaca ayaa la siiyaa gulna ma hayn qof cadowgeena ah waa qof walaalkeena waddankeenuna ka dhashay shalay hadduu ku socdo waddada xun maanta wuu ka soo laabtay gacan ka gardaran ayaa dishay gul iga raal noqo taliya waan qaldamay بس دلك قداية سلطان قور أنا جوان أوجه هيدا كله إني إذن سو أذيك سدين إذن كنا آتين هبكي لقد دقال ملها بس واحد إذن كمقن شبق حن إلى ذيني واحد نمودان تلابدين إني سحنتهاي كنا هانتي تلابدين وخلدنتهاي مدة كله واحد دون إنسان قلدين برعده waddankeena inaad kala jartaan ood ka dhigtaan laba dawladood oo laba calan lagu kala saaro annaga intii gabari naga nooshahay xornimada aan doonayn inaan gaarno waan raadinaynaa dagaalkan ku jirnana waa mid xaq ah waanu dagaalamaynaa baan ku yidhi aamu suuriya waxaad xaq u dagaalamaysa male xaq daro ayaad ku socotiin qoladiina barcadda waxaadna doonaysaan dalka iyo dadka ku noolba inaad baabi'isaan dhiiggooda aad cabtaan kaale adiga waxaan ku weydiinaa dalkan aad dagaalka kicinayso soo moogi dalkaaga inuu yahay dalkiina maahan ha ku riyoona midaas baan ku leeyahay anaga dalkiina haddii uu yahay dadkeena maxaa loo daryeeli waayey maxaa loo cabiidsanayaa ii sheeg aniga waan ogahay waxaad damacsan tahay balse adigu og haddana anigaa kuu sheegayo indiya waa dawlad dimuqraati ah dimuqraati ay dadka ku nool yihiin qof walbana xaqiisa wuu u doodi karaa dawladda ayuu xaqiisa ka codsan karaa laakiinse idinku ma doonaysaan wax walba waxaad doonaysaan xoog inaad ku qaadataan xoogna wax laguma xaliyo aniga kuu sheegayo run ahaantii adiga waad lunsan tahay balse sidaas ay tahay waddani ayaa tahay adiga iyo ciidankaaga hubka iska dhiga aniga waxaa idin ballan qaadaya dawladda xukunkeeda inaysan noqon dil toogasha ama xabsi daa'in laakiinse waxaad ogaataa in laydin xukumayo xukunkaas waa noqonaya xukun yar si kastoo noqotana aniga waxaan idin ballan qaadayaa inaan laydiin geysan wax dhiba ballantaasna waxaa qaaday anigoo ku hortaagan oo militariya ha isku dayin adiga dad kaa badan iyo duufaanba inaad hor istaagtid oo aad celisid haddii adigu aad doonaysid hubka inaan dhigno oo aan dagaalka joojino ordabi aad madaxdiina u sheeg maanta laga bilaabo gobolkeen inuu yahay gobol xura oo ka madax bannaan dalka hindiya u sheeg orod markaas ayaan hub ka dhigaynaa aniga marka hore riyadaada adiga kuuma rumoobay sababtoo ah dalkan xornimadiisa geesiyiinta xornimada u soo dhaliyay ayagoo rooti cunaya xornimo ma dhalin dhiiggooda ayaa u daatay ma ogtahay adiga dalkeena in dadaal fara badan iyo dagaal fara badan uu u soo maray si uu xornimo u qaato waxaana u soo halgamay geesiyiintii hore maadaama ay dhinteen geesiyiintii hore waxaad ogaataa geesiyiin lamid ah inay joogaan waddanka waxaana ka mid a aniga oo dalkayga u huraaya nafteeda kana dhicinaya burcadda noocaaga kale dadka doonaya dalkeena inay kala gooyaan oo adiga kaa dambeeya haddii ay waddankeena indhahooda ku soo fiiriyaan waxaa igu ballana indhahooda inaan kala baxayo haddii ay damcaan lugtooda inay dalkeena soo dhigaana waxaa igu ballana inaan gooyo welina ma dhalan qofkii dalkeena laba kula dhigi lahaa laba calan kala noocna saari lahaa waayo aniga ayaa jooga oo dalkayga difaacaya kana difaacaya qofkii damca inuu laba qayb u kala dhigo سلام هويا وان كا قاده ويلكي هويا gabadhan arti maanta wixii ka dambeeya amaanadaada weeye aniga waan ogahay dhimashada wiilkaaga
inuu qalbigaaga dhaawac weyn ka soo gaaro sidaas ay tahayna dhaawacaas kaama tirmaayo ilaa aad ka dhimatid waan ogahay hooyo balse sidaas ay tahay waxaa la doonayaa inaad u noolaatid gabadhan darteeda halow casuur ayaa kula hadlaya sida aan jeclaa dhimashadaada way soo dhowdahay goor dhowna saldhigga qarax ayaa ka dhacaya dhinacyadaada fiiri mar dhow waa kuma ninka hadlaya yaa waa ninka hadlaya halow Halo Baye Bambo. Bamba Bactiri. Maye abo si ay joog sanna ku iri. Meesha ayaa lagu furay. Meel khatar waaye. Wariyaadi suldaanka aawe. Meeshan waa la wadi. Moogi Sooma. Ha moogi. Wariyaadinka nimankan hurta dheer hurdaan. duufaan saldhigga dhexdiisa meydadka yaalla markaad aragtay waad ogaataan u malaynaya awoodda aan leennahay hadda waxaan kuu sheegayaa hogaamiyaheenna 24 sac gudahooda ku soo daay haddaad ku soo day weysidna wax badan oo meydhaad arkaysaa xataa adiga ma ku cafinayno هيا لكن نحصلوا ورقص حبتك قليها قصك هيا تليه ما حنصوبنا مشو كلها ميدت كود من كود مجيها مايا هيا dadkan ha iga laynin waad ii wadaysaa xabsi ayaad iigu shubaysaa صور يا وشعونا وصور يا محاكم قمنا كويري دقاء هاي صور وشعنا كويري نفسك صور يا دخيو هذين ولا انش صور صور يا ورتدكين ما ساعتي وريا لوين كلا بيعيه صح ولا يصفر لي سي صور يا وشعنا ترتيبا كويري هايا أنا وعبسنا قريجي ماشي أنا قوات كوريدي أنا وجينايا بس وحيرسك أنا وجينايا وأنت جينايا هايا قريجنا جينا ما جينايا أنا وجينايا حسني هيا عرفت أنا قاعد مسياديك لما قالت بقى حنا يا مدح هيا أنا أمسينا صعدة هلو duufaan haya cajaladda waad aragtaan u malaynaya ها عجلت سفيعنا يا نوركي لكن سلقا ما يابو سلطان إنا سيدايو وحوال بوقت سميسان مدينايو duufaan 2 maalmood oo muddo ayaad qabtaa labadaas maalmood hogaamiyaheen haddaad ku soo day weyso waad ogtaa 20 qof ayaa ii xiran maalin walbana qof meydah ayaan agtaada soo dhigayaa aniga adiga sheeka dambe nagama dhexayso horta kaalay waxaan kula yaabay sidiinaba haddii aad bocod tihiin kelmad jecel ama hadal jecel ama hadalle macaan ma taqaanaa miyaa dil iyo wax lamid a inaad ka sheekaysaa mooye war waxaan kuu sheegaa geesiyiin badan inay waddankaynu ku nool yihiin oo dalkoodan difaacayo mashhuur marar badan aniga waad ii cagajugulaysay laakiinse sidaad iigu cagajuglaynaysay aniga waxaanba ku fikiraa qofka mashhuur leeyahay oo mar walba kuu cagajugulaynaya ma nin ragaa mise waa dumar kaasaaba kala saar lahay saaxiibow aragtidan dambe saari soo xiro makaanan ninkan madaxiisa inaan u baabi'in dadkaas waa inaan sii daynaa ninkan taliya ma og tahay suldaanka haddii aan sii dayno dadkaas barcadda awooddooda inay sii siyaadayso marka ma sii dayn karo ninkaas oo ma waxaad rabtaa adiga ninkan inaan jeel ku hayno 20kaas qofna bilaa micna loo lahay mad rabtaa ma kaa yeelay taas aniga waan sii daynaynaa ninkan sharaf dhac ma doonin anaga
tali waan ogahay hadalkan wax kaa keenay dadkaas la afduubtay gabadhaada ayaa ku jirta soo sidaas maaha tali iyo laakiin tali adiga fikirkiiska daa aniga aaminkaygu qab sababtoo ah gabadhaada sooniya anigaba wax ayaa naga dhexeeya ninkaas asoona soo daana ayaan soo badbaadinaya dadkaas war heede anaga maxaad nagu haystiin anaga ma dawladdii idinka diraadsanaysaa noo malayseen war anagana sii daaya qaladiyaad nagu haysataan inta ayaad joogaysaan inta hogaamiyaheena dawladdu ay haysato dadka masaakiinta intaad soo afduubataan ayaad geesinimo isku sheegaysiin sidaas maad geesi ku tihiin adinka war haddii aad geesi tahay orod booliska soo badbaadso kaabahay ka haystaan ma aniga sheekadaas ii sheegin geesinimadee orod boolisku sheeg war annagoo 5 qofood ayay 200 nagu soo weerarayaan waxna naga qaadi laayihiin waa sidaan hore aan kugu sheegay inta hogaamiyeen laga soo deynayo inta aad joogaysaan haddii la soo diidana meydkiina laga qaadaya halkan ogaada midaas la socda haa nadil inaan sidaan aadaanto meydkeena ogeey dadkaas war idinka maxaa isku malayseen bilhaadin inaad tiina xayawaaneed mushakal dhaha waa cabti waa kuma kulan biyaa maanta waryaa gafkala hadid geesatid oga waa ku kulan kula nin isla markii la qalin oo hor burcad ka naqdi oo bistool qaati ma jiro waryaa ninkan aa ujeedi daacada sahay adii burcada ku dhaarsan shirkaas ka qayb galnay hadii ka qayb gashidna waa lu gulaan gulaa ogaaw ya saasa ku sheegoyaa baan meesha maxaa ku geeyaa admeel bilay taalo war aniga waan tagayaa haye mana loo baahnaa in aan ka boqo cagajuglaynta burcadda haddii aan ka boqo dadweynaha maxay leeyihiin wuu cabsiday leeyihiin gawe muusa ku dhiiwaa ad bilaay maxaa ku geliyey tii bishaa qawaam iska dhahdo masba waa sidaa igu boqay saasa ku nabadgelaysaa anaa ku sheegoyaa sidaas sidee u dhahayaa mudan soo anigu ma kalsoonin aniga staafka qaaska ayaan ahay waxaana ku ilaalinayaa si bini'aadnimada ka baxsan adii shirku waad ka qayb gelaysaa waxay isku daya inay tallaabo kaa qaadaan anaa tallaabo ka qaadaya shirkana waad ka qayb gelaysaa maya anigana cabsad ha ii malaynin adigana waan kugu kalsoonoo waxaa tahay nin libax ah waa mahadsantahay mudane aabe meesha ma la joogi karo joornaalka horta ma akhrisay joornaalka waxa ku qoran rag boolisa ayaa burcad laayay midda kale aabe waxa kale oo joornaalka ku qoran rag burcada ayay intii guri galeen ayay maatina iska baabiyeen midaasna mid loo adkaysan karo ma aabe anigana midaas ma adkaysan karo waana cabsanaya aniga aabe waa run goormee waddankeenna dhibkan uu ka dhammaanayaa ii sheeg sidaan maan ku soconaynaa dagaal waa ka joogsanayaa waddanka waa markii burcadda la baabi'iyo ilaa burcadda la baabi'iyana wanaag ma imanayo هاي ويدي سلامي وكا قاعدة بوي ايوه رباي نوت في عنتا اوه شروك سلام وكا قاعدة هاي في عنتا إيسو هاي ولا هوش هذا جورنال سينما كورن runtii hawsheeda aad iyo aad ay u fiican tahay maalin kastane joornaalka waxaan kusoo daabacaa waa aragta adiga hadeerna aniga waxaan rabaa madbacad gooni inaa aniga furto ka waran waa fiican tahay soo gala anta ninkan xira alisnaqnaqaajinaya maxaa jira xira ninkan waa dembiile burcad wey maxaa jira maxaa lagu xidhayaa ninkan suldaanka ayuu la shaqeeyaa burcadka weyn weeye ninkan war ma aniga burcad adiga waa burcad aniga oo joornaalist si ka noqotay war ma aqaano joornaalist sheegaysi waya xira ninkan gudaha ana badbaadinayo walaalkiisa wari adinkii dhegeysta amar la'aan ma xiri kartaa ninkan hadda ayaan la hadlayaa ra'iisul wasaaraha
wixii kugu dhacay igaarkii aadan ugu xumay runtii iska sawir adi weliba annaga waxaan ku ballan qaadaynaa haddii aad noo sheegto nimankaas booliiska ah saldhigay ka tirsanayn ama magacyadooda raadraac inaan samayno maxkamad la saaro weliba la marsiiyo xukun munaasiba xukun munaasabaad leedahay oo kaalay nimankaas maxkamad haddii la saaro oo la xukumo 4 qof oo waalidkaygoo dhintay ma soo laabanayaan maxay biyeen dadkan lahay waa booliska waddanka bal fiiri dadkaas maxay ka biyeen booliska shacabka inuu badbaadiyo maa loogu talagalay mase inuu laayo mudane waddankan militari ayuu u baahan yahay boolis muu baahna booliska asigaa burcada oo shacabkii baabi'inaya shacabka inuu badbaadiya loogu talagalay mudane tayda hadday tahay boolis oo dhan waddada ha lagu laayo kabitaan xuduuddaas soo gudbin annagana hana aflagaadaynin maxaan inka aflagaadeeyaa adinkaaba aflagaadaysanba haye bes xuduudka waa soo gudubteen araggan waa gooseen mudane dadkan maxaad wejigii ugu keentay kuwee dhaawacayga ayaad doonaysa miya inaad milix ku shubtid dadkan waa dadka gurigayga baabi'iyey waa dadka waalidkay baabi'iyey dadkaani walaashayna horteedii ku watay 4 maalin ka bacdina waddada ayaan ka soo qaaday ayadoo mayda rifeertadii dhakhtarka laga soo qaadana waxay caddaynaysaa in walaashay la kufsaday oo la xoogay mudana waxaan kalaan kuu sheegaa walaashay keliya inaanan la kufsan ee sharaftii waddankoo dhan la kufsaday waxaana kufsaday dadkan aamus taliya ninka naga qabto waa waashay waa runtaa waanba waashaba sidaanan ku waalana aniga ya haddaba iga dhaqaaqa waan waalanahaa baan idin idhi mudane ninkan agteedaan laga fogeeyo waryaah yaa tahay yaa ku soo diray ii sheeg anigu cadowgaaga maahay walaalka ayaan ahay booliska khaladkan ay kaa galeenna waa wax iska caadiya annaga naftirkeenna booliska khaladkaasoo kale ayay naga galeen mala socotaa annaga maxaa burcad naga dhigay oo nagu kalifay inaan noqon noo sheeg bal sababta nagu kaliftay burcad maxay tahay yaa sabab u ah annaga in aan noqono rag dalka ka soo jeesta waxaa sabab u ah booliska iyo madaxda dalkan ka talisa oo dhan dalkan waxay leeyihiin waa dal dimuqraadi ah balse annaga waxay naga dhigeen rag gooni ah oo gooni goosad ah annagu hadda waxaan rag xurnimo doon waxaan doonayaa adigana inaad xurnimadaas aan holgamayno aad qayb ka qaadatid adigoo kaloo geesi ahna aad ayaan ugu baahannahay bajiyada bisbaaska kulaalka ka keenay ninkaana booliiska ka dhigay burcad taliya akhbaar ayaa hadda soo gaartay burcad saldhigooda dhan waa la soo ogaaday wah hayaay arxabadda ma yahay xagee laga keenay noocan oo kale magaalada ku nashay uma fahmaybe waa tuuro walisay xabad yaha yareen bal nooc yarada war maxaa ii malaysay naaga jirkooda ka ganacsama ii malaysay war ma ciyaaray aniga mana ciyaari jirin ma ciyaaraya haa ma ciyaaray ayaan ku yidhi na xagee joogtaa ismooday haddaad ciyaari weydo amar wey waad ciyaaraysa haddaad ciyaari weydana meesha waxaa ka ciyaaraya mayd ah maya okay ciyaar waayahe
toman iyo shan beri waaye meeshaanaan joognaa meel aan ku qaadino oo aan ku mashquuloon xataa ma helooni kuwa mana dhaafaano maxaa jira galno ajikid madaxba nimac dhagax boqsanaad ii keenta istanji ma lagu qabsi kara dhagax boqsan waan ku salaamay maadaama la haysid dad masaakiin aha oo afduubyaal ay haysiin adduunka lagu hambalyaynaya moogtahay dadkaas 20 qof ay ahaayeen ayaa la yiri adiga noloshooda badbaadiyay waliba waxay ku sugnaayeen arinta booliska ma qaban karin adiga qabtay laakiin aniga wax walba aan qabtay waxaan u arkay waajibaadkii oo kaliya inaan gutay tan labaadna waxaan aad ugu farxi doonaa maalintii magaaladan xasilooni aan ka dhaliyo maalintaas ayay noqonaysaa maalinta dunida ugu farxadda badan سردان وانكو سلامي waxaan rabaa inaan kula hadlo adiga ilaa hadal sooda meeshan mugdiga ah oo adiga ku jirta ayaan doonayaa inaan ka badbaadiyo diyaar mu tahay xornimo ayaan ku siinayaa aniga oo burcad ah maxay tahay sababta aad ii badbaadinayso sababta aan ku badbaadinayo adiga asxaan maahan waxaan kaa qaadayaa lacag maxaa ingarasiya ah inaad halkan aniga iga badbaadin kartid haddii lagu siiyo lacag intaad doonto aniga waxaan doonayaa hal dhagax oo keliya inaan ku dilo 2 shimbirood adiga markaan ku badbaadiyo aniga waxaan helayaa lacag in alla intaan doono markii halkan aan kaa badbaadiyana duufaan waxaad ogaataa arrinta oo wato dhan inay ka dhiciso weyso runtii aniga militariga aad iyo aad ayaan u necbahay shacabkana ciidanka militariga ayay jecel yihiin booliisku way necab yihiin tallaabada aad igu badbaadin lahayd waad ku dhaqaaqi kartaa aniga ayaa mashuud wax walba u sheegaya lacagtaadana waxaa lagu siinayaa inta aadan aniga ii badbaadin ka hor okay waan ka tegey واتنا بورصة لعجة تم بورصة لعجة مهن وفري لوكس بدل هاي سلطان كأديك عيدا كأقول تريو ما فهمت واحد وقتها إن أنسدينا يا سلطان waxaan ka sugaa waa suldaanka haddii aad isku daydo khayaano inaad samaysidna ogow kan waa taqaanaan u malaynayaa iska daa walwalka qalbigaaga ku jiro ninkaasna u niyiis isagoo la soo dayay oo kale hadeertaanna waan ka tegey walaali badbaadi dad bidco iyo hooyadii aabbahay dileen anigana waxay rabaan inay xoogaan walaal waan ku baryaa i badbaadi walaalkii maya xabsan wax kama gaarayo gabar walaashay ayaa tahay anigoo ku badbaadinaya xabsi iska daa waaw kabtan duufan informationkii soo gaaray ileen run buu ahaa ninkii burcadda ka soo horjeedi jiray maanta wuxuu gacan saar la yeeshay ciidamo burcadda kamida gabadhan soo burcadda maahan qofta ma burcada war wax loo jeedo indhaha caad iskama saaro qoftan inay burcad tahay adna u jeedaa anna waa u jeedaa habeen kastana waad la raaxaysataa adiga waryaa isbatoor aniga waxaan ahay nin naftiisa weligiisa usoo hor jira dalka waxaad doontid waa igu nabi kartaa laakiinse gabar burcada ayaa la seexatay ma igu nabi kartay ama gacan saar aad la leedahay burcadda haddaba ka fiirsa hadalkaaga yaa naya burcad suma tida adiga ahaa askari ninkaan habeen kasta uma timaada adiga inta ahaa askari habeen kasta ninkaan soo lama raaxaysata adiga haa askari weliba habeen kasta 5,000 oo shilin ayuu i siiyaa haa
adiga ma noqon kartid gabar walaashay ah sababtoo ah waxaad tahay qof burcada iligiis isbatoore aniga waan filayay in shirqool lay dhigayo laakiinse isma leh shirqoolkaa wuxuu noqon doonaa qof burcada in lagugu dabo ma filayn balse waa iga hoos bixisay calacalkaaga waa dheeraada laakiin haddeertan xabsiga ayaan kudaya soo baxa tugiyo isbatoore najbaal isbatoore khatar oo doobiya kundoobiya jokas dheliyan ku leeyahay war sida asku soo badbaadiya buu xarasiista leeyan marka mudana waxaan kaa codsanaa ninkaas inas noola shaqeeyo anaga dhegeyso hay gaariga duurka u leexiyey see wax u jiraa taliye sababtoo ah ninka askariga oo aniga soo badbaadiyey ma aha nin aniga aan aqoon buuxda u leeyahay waxaa laga yaabaa qorshahan inuu yahay qorshe booliska ay soo degeen oo ay doonayaan inay saldhigeenam halka u yahay ay ogaadaan sidaas ay tahay marka saldhigeenam ma aadayno anta jiifeenaa cawada ununka jadda ayaanu jiifanaynaa ma fahmaysa hadalkayga marxaba naleexiya dhaqsada ठीक है काजी साहब चबाई के चुन रे गिराई के हो अखिया से मारे ये कनखिया से मारे मोर जिया रखे हाल अजब होई गवा मोगे गोर की छोकरिया से लब होई गवा अरे लव होई गवा अरे लव होई गवा अरे लव होई गवा बबुआ लव होई गवा अरे बतिया से मारे ई सूरतिया से मारे मोरे जिया रखे हाल अजब होई गवा मोगे गोर की छोकरिया से लब होई गवा मोगे ला 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 अरे क्या हुआ बबुआ मोहे लाभ 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 होई गवा मोहे लाभ 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 होई गवा सारी बनारस की जयपुर की चोली जयपुर की चोली हाँ जयपुर की चोली सारी बनारस की जयपुर की चोली जयपुर की चोली हाँ जयपुर की चोली
जब हुई गवा मोहे लाभ 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 हुई गवा मोहे लाभ 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 हुई गवा मोहे लाभ 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 हुई गवा अखिया से मारे ये कनखिया से मारे मोरे जियारा के हाल अजब हुई गवा मोहे गोर की छोकरिया से लाभ हुई गवा मोहे ला 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 बालों में जूही का गजरा सजाएंगे बिजली की राती है गजरा लगाएंगे गजरा लगाएंगे बालों में जूही का गजरा सजाएंगे गजरा सजाएंगे बिजली की राती है गजरा लगाएंगे गजरा लगाएंगे गजरा लगाएंगे कोई भी ना जाने कैसे कब हुई गवा मोहे लाभ 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 हुई गवा هي كابتن كوالس تاني كتما مرصد كورني ما انت اني قاعد قعنتي وجرتاي كابتن مربع دي ادارك اسبطورها وحي لتاي قرشينا ان ادفهمتي انا قرشينا وامد ادك ولا سو فكري ادي كوريوتا اني انا نبابيسو واحد وقاتا isla riyada dhexdeeda ayaan ku dilnaa oo ugu takhalusaynaa maba la soo toosiyo suldaan maxaad ka faa'iidaysaa haddii aad aniga i dishid sababtoo aniga miyihi militariga hore oo cadowgaaga ahaa kana soo horjeeday aniga weligay waxaa ahaan jiray nin ciidan ah oo naftiisa u huraya sharciga balse hadda sharciga nafteeda u huraya ayaaba iraadsanaya sababtoo ah dembi aanan lahayn ayaa dusha layga saaray askartana way ceersanayaan haddii aad doonto waan kuu shaqayn karaa gruubkaaga ma ku soo beeri karaa inaan kusoo beeran doonayaa duqa gruubkayga isaga soo beer maaha haddii aad kusoo beeraysid waa inaad nin madax ah oo dowlad ka tirsan aad dishaa ambaba askari kadib waan ku ogolaan karaa maya suldaan naag dhila ah hadalkeeda waa la aamini karaa laakiinse askari noocan oo kale hadalkiisa in la aamino maaha aniga adigoo kale ma aamini karo ciidankaygana si sahla inuu ku soo biro ma dulqaadan karo balse maadaama aad tahay nin ciidan ah oo soo carooday waan ku soo dhaweynayaa ha waan ku leeshinayaa soo gal xabadka walaal dhegeyso maanta arrin muhiima ayaan ku hayaa run kaa dahnayna shaacan kaaga qaadayaa aniga dhibkii lagu geystayna booliska ma ka dambaynin ee suldaanka ayaa ka dambeeyey suldaankaana sheekada adiga kula maaganaa ninkan ma garanaysaa adiga ninkan waxa weeyaan boodhgaarka qaaska ah ee ra-iisul wasaaraha weeye alloora sidaas haddee tahay ninkan aad ayuu ii anfacayaa
gruubkaygana wuu ku soo biirayaa waan u baahanahay waa ninkiisii taas suurtagal maaha ninka sidaad moodaysid maaha waa nin aad adag aniga ayaa jilcanaya qorshe ayaan hayaa ninkan faamilka isaga uu ka dhashay ayaa la baabi'inayaa waxaana baabi'inaya ciidamada ragga anigii shaqeeye ah oo sita dareeska booliska markaas isaga uu gadoodanayaa dantuna waxay ku qasbaysaa inuu kusoo biro gruubkayga oo uu jabhad noqdo dowladdana ka soo horjeesto gartay macnaha had minkaa gartay boliiska aad doonaysa inaad boliis ka dhigto ila waa ciidankaaga aad boliis ka dhigaysa dharkii boliiska u gelinaysaa miya haa waa sidaas anigu sideedaba dhallinyarada gobolkan degan ayaan waxaan rabaa inaan ka dhigo rag ciidana oo xurnimo doona dan gaar ah ayaana ku fulinayaa marka adigu ciidan ayaan kaa doonayaa waxaana adigu ogtahay ciidan la waayi maayo magaalada yacyacayaan oo qaar gaajaysanay ciidan baa iyagaa laga dhigayaaba maxaad ku haysaa ciidan la'aan ma jirtee dhegaysa adiga militariga mashuuta la yidhaahdo reerkiisa ayaad soo baabiinaysaa dareeska booliska ayaadna xiranaysaa shaqadaas sidee taa u soo qabo ma doonaya ninkaasna inay wax gaaraan waayahay maya been baad ii sheegaysaa taasna ma dhici karto adiga waxaan u malaynayaa sheekadan waa laguu soo dhisay waxaana kuu soo dhisay kabtan duufaan sheekadan asaa kuu soo dhisay soomaa sheekadan midaan yeelaya maa been baad ii sheegaysaa adiga dadkaygana kama soo horjeesanaya walaal been ma kuu sheegaayo adiga dhibkaaga ayaan ka xanuunsaday gabadh walaasha ahay ay aamin suldaanka ayaa sheekada ka dambeeyey anigana waan kaa qarin kari waaye gabadhan hadalkeeda run ayuu ahaa waa ka xumaay runtii gabadhan abtinin waabuu ahayba sidaas daraaddeed xurnimadu dhiig in loo daasho ay u baahan tahay marmar xataa dhiigga in lagu qubaysto waa loo baahan yahay haddii la omana dhiig la'abaa la rabaa maxaad tidhi dhiiggeed ka hadlaysaa dhiiggee ka hadlaysaa dhiiggan miyaa dhiiggaad ka hadlaysaa adiga war dhiigga gabadha maa ka hadlaysaa mase kii waalidkay baad ka hadlaysaa dhiigga walaashay maa ka hadlaysaa mase dhiigga ninkeediibaad ka hadlaysaa maya waxaagu waa haddaaf aniga dadkayga waan ka soo horjeesta laakiin maanta wixii ka dambeeya kama soo horjeesanayo adigoo kalena inaad noolaatid maaha anigaana kaa qabanayo waddanka baastariyo anigoo nool baad doonaysaa inaad noolaatid miya adiga war adiga nolol kuma fiicnida iska dhimo waryaah marba haddii la joogo goobta dagaalka looma baahna meydka in la tiriyo oo la caacabaado waxaa loo baahan yahay cadowgaaga inaad iska celisid oo aad xabad ku ridid oo keliya annagu waxaan u dagaalamayno waa xurnimo oo keliya xurnimadaasna dhiig far badan ayaan usoo daadinay dhiiggaagasna adiga dhiiggaaga haddaan daadiyo waxba ma dhaamo isku mid weeye adiga naftaada ka nahay weliba kaagdalanta maantana dalkaagaad ku shahiidaysaa baan ku idhi adun baa u dagaalamaya haddii shahiid aan noqdo aniga oo shahiidnimo aan ku dhinto waxba uma arko balse adinkama ii noolaanaysaan anigaa inka baabi'inaya dalka burcad dhashay oo khayaano miirana ayaa tihiin adinka dagaalka waad bilowdeen kowdhe laakiin anigaa soo afjaraya ballan weeye middaas hal adinkan ka mida intuu nool yahay anna naf ay ugu jirto ma badbaadaysaan dhaskaad waddanka ku haysaanna aniga ayaa soo afjaraya waa igu ballantaas wax badan ayuu nala soo jiray halgama ayuu ahaa balse maanta waa kana waa baqday fulayuu noqday waa la soo dheeraaday soo dhowow saaxiib soo dhowow cornelo waa ku salaamay soo dhowow layaab ayay kula noqoto baan moodayaa markaad aragtay arjun duufaan oo aniga ila jooga beenta ma aha arjun duufaan shalay wuxuu ka mid ahaa ciidamada dawladda ayuu daacad u ahaa laakiin maanta annagu naga mid yahay waa geesi dhalay balse waxaa la yaabaa ninkan oo ahaa nin geesi ah oo halgama ah haddana fulay noqday waxa ku dhacay anigu maaqan balse maadaama aad timid adiga xaflad ayaanu ka dhiganaynaa kan waa lagu waaqdhacana
dhiig in lagu daadiyo weeye ma ii noolaanayo waa cuna dambas keenba adiga inaa gaftidaa dhici kartaa anaa matriika leeyaha kan हम करेंगे aniga marka aan ciidamadeena ku soo biirayo qorshe ayaan ka watay qorshahaasoo ahaa qorshe aan idinku baabi'inayo bastrio قرمون انت يجي تبال مات وانا قاعد قرمصنه صاحب منو صاحب ciidamadii dhan way saaxiib way dhamaatay war iska daba yimid inay way gaar wad wartay baaliyo ragaas ka dhicino war wixii hore mana hataa wixii hore waxa ahay wax qarmoonimo imika halka adoo iska raaxada doonto anu halkayga ka wada halkayga daadi war iska raaxado oday baatay oday baatay baatay oday saxba biyo oday iska raaxado oday dhintay baatay muddo doonayna nooladay wara kale oday hadaa geesi aan wara ila dhimada baaliyo asal dhimana kale may adoo dhimo qarmoon ay koy استاذ بريان يا هاي سلطان ما aragtaa dadka aa weligaa u nacnayn jirtay maanta inay kaa carareen fuliyalowe waxayna kaaga tegeen meeshii aad burburka iyo dagaalka aad ka kicisay isla meeshaas ayay kaaga tegeen foolxumo badanaa warniyo aniga mar hore ayaan ku waaniyey laakiinse waanadii waa qaadan weye fiiri kanoo kalan walaal ka dhigi jiro fulay dhigid ka socdaday saasoo dhimasho uga cabsanaa ka waran aniga hadda qaladkii waa ma garatayba kanoo kalan walaal ka dhigtay haddii aad qaladkaaga qalatay aad waddada xun ku soo laabatay aniga fursad ayaan ku siinayaa u dhamay ninkan aniga carri hay qarmuunka ore sudan
ولا نسكن يا علي يا با ولا ادريسا هوغا ولا نسكن يا ولا الله كبريا ولا Sultan Gerbambas dagaalka weli ma dhammaanin aroorin kaali aniga imaaw haa unakaa kula jirnaa unakaa ku duuban haa kaali agtayna imaawa ku hiri ad war ma maqlay sidoo unakaa nool kaali baxawyaw habo suldaan kaali dhegayso adiga waddanka keliya cadow kuma tihid ee shacabkana cadow ayaad ku tahay ey iida cadow korneel duufaan anigu waddanka dembi ayaan ka galay haddana xarig ayaan diyaar u ahay waa inaad xirtaa hooqoragana adiga waxaad tahay wiil lunsanaa oo gurigiisa ka lumay haddana gurigaaga waad heshay hooyana wiilkeeda lumay hadduu u soo laabto way cafinaysaa marka adiga maadaama aad ogaatay qalad inaad gashay haddana aad ka soo laabatay dalkaaga ayaa kuu baana anigana kuma xiraayo xor ayaa tahay dagaal waa dhammaaday dadkii waa heshiiyeen dadka filinka fiirsooyaan mininkiin u baxaa